dhiigkarka runtii waxaa jiro waxa la yiraahdo pressure oo maxaa la yiraahdaa dhiig ahaa jiro soo marka haddii pressureka dhiigga uu bato okay waxaa imaan kara marka waxa la yiraahdaa hypertension okay oo ah cadaadiska dhiigga inuu bato ayaa waxaa la lahaa hypertension imaan karo dhiigkarka inuu imaado waxyaabo badan sababi karo waxaa ka mid ah inta badan waxaa loo kala qaadaa primary iyo secondary primary waxaa la yiraahdaa qofka haddii uusan exercise badan sameynin socod badan uusan sameynin waxaa imaan kara qofka in dhiig kar uu imaado because qofka markastoo cuno cabo oo jiifto wuxuu halis ugu jiraa cudurro badan sokorta xataa ayada way ka mid tahay cudurrada halista ugu jiro sidoo kale waxaa keeni kara stresska badan qofka haddii uu yahay qof stress badan oo maanta dhan waxaa waaye stress aanan ka dhamaanaynin sina wuxuu halis ugu jiri karaa inuu dhiig kar ku dhaco dadka cusbada aad ku isticmaalo raashinka markay cunayaan cusbo badan ku darsado ayagana waxay halis ugu jiraan in dhiig kar ku imaado sidoo kale dhiig karka wuxuu ku imaan karaa dadka cayda oo biiska ah oo runtii aad faat ku ah ayadana halis ay ugu jiraan in